السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أصحاب عندنا لقينا في الصون FX kusoo dhawaada taxaniheenii barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ama forex-ka qaybtiisii basic-ga cashirkiisii toddobaad waan ugu qali doono maanta cashir aad iyo aad muhiim u ah ana midda lafdhabarada cashirada basic-ga qofka inuu fahmo aad iyo aad ay muhiim u tahay cashirkeenii toddobaad maanta waxaa ugu qali doonaa forex orders-ka ama noocyada kala duwan ee trade markii la qaadanayo loo qaato wada ognahay orders markaa samaynaysa ama trade inaad qaadanaysa marka horta waxaa u baahantay inaad soo degsatay application la yiraahdo MT4 ama MT5 MT4 kaas ama MT5 kaas marka waxaa ku xiranay brokerkaaga and then brokerkaaga markaa ku xiratay waxaa access u lahaanay inaad trade aad gashi aad xiratay ama aad furatay taas ayaa markaas access u lahaanay so marka si aad u fahantay MT4 qaab noocyadiisa kala duwan ee qaabka trade-ka loo galo ama looga baxo waxaa u baahantahay marka inaad cashirkan aad iyo aad u dhageysatay si maxaa la dhahaa premier trader noqotay aadan ugu wareerin MT4-ka runtii MT4-kana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aad iyo aad basic waa muhiimna u ah qofka horta inuu fahmo intuusan bilaabin shaqada inuu suuqa ka shaqaysto waxaa aad muhiim horta inuu fahmo MT4-ka haddii ay tahay marka saaxiib ugu horeyso waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe like share and comment kuna soo dhawaatay teamkeena ama familkeena Son FX haddii aad tahay saaxiibada hore noola joogin waxaan kaa codsanaynaa inaad noo sii share garaysid si asxaab badan aan u gaarno aad iyo aad waa mahadsantihiin haddana waxaan guda galaynaa cashirkeenii cashirkeenan ama order iyo stop entry order saddexdan qaabood ama saddexdan category ayaa orderka ama suuqa trade-ka loo furtaa ama loo xirtaa mid walba oo dul istaagi doonaa tusaalaheeda iyo wixii laga wado horta intaadan fahmin xalaqada iyo limit orderka waxaa horta aad muhiim u ah horta inaan fahno order marka maxaa waa orderka adi maxaa tahay orderka waxaa waa isaga waa proposal ama wax inaad soo jeedisay inaad furatay ama inaad transactions ka xirtay sidoo kale waa isdiyaarisay suuqa imaatay waa falanqaysay trade fiican aragtay inaad gashay amaho so marka orderka samaynaysa wuxuu noqonaa inaad trade place open inaad furatay oo ka furatay brokerka adoo isticmaalaysa trade-ka meeshii la rabay ku dhaqaaqay lacag fiican and then marka waxaa rabta marka inaad furatay ama inaa exit ku samaysa ka baxday markaasa marka waxaa la order marka orderka sidiisa laba category ama laba qanadood in la dhaho market order in la dhaho pending order so marka labada marka waxay kala duwan yihiin market order isaga waxaa waaye suuqaas isla xilligaas aad trade-kaas furay ama isla xilligaas aad iska xiray adoo isticmaalaysay brokerkaaga halka pending order-kan uu yahay trade aad dhiganaysay ama isbaara aad u dhiganaysay aad sugaysay sababta inaad isbaara u dhigatay ama aad sugtay maxaa keenaya laba shay kow inaa horta shaygan ama trade-kan price kaa rabta inaad ka gashay in horta la gaarin oo waqti ka dhiman yahay ama inaa adi tahay qof mashquulsan oo maxaa la dhahaa ama raba inaa hoola qabsado and then marka waxaa qasbanta marka inaa isticmaashay markaan pending orderka like halka market orderka inay tahay markaas suuqa waa ag joogtaa firaaqaa heesa isla markii aad trade-kaas furnay xoogaa hadduu ku dhaqa waa iska xiray laakiin kan waxaa waaye pending orderka isbaara u dhiganay qofka uu soo socdaa intuu meesha ka imaanayo waa suunay maaha adin markuu meesha ku imaado ayaa soo raacay price so that's why marka farqi u dhexeeya taas waa midna markii aad market orderka marka sidoo kale markaa MT4 ka soo degsatay waxaa aragtoo kale lacag euro USD sidoo kale euro USD lacagta aad doorato ku dhifatay wuxuu ku siinaa focuskan oo kale oo ah meel aad ku qoratay stop loss-kaaga target profit oo ku siinaa kadibna labadan option oo ku siinaa inaad trade-kaas markaas aad buy u taabatid ama inaad markaas trade-kaas sell aad taabatid haddii qorshahaagii trade oo ahaa inaad buy u gashi meeshaan buluugta ayaa kala kusiinay automatically trade-kaas oo orderkaas uu ku furmaa haddii aad u qorsheysay marka SL-kaaga iyo TB-gaaga iyo lodkaaga iyo waxay dhan aad soo fahantay taas waxaa ku dhufanay
selka ku dhufanay oo ah meesha guduudan. Market orderka isaga kaas waay. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صاحبة قناة janaalkeena FX kusoo dhawaada cashirkeena sideedaad ee kooraskani inoo socotay ee barashada suuqa forex-ka qaybteeda basic-ka. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaa kaa codsanaya inaad nagu soo dhawaatay janaalkana subscribe like share comment. Haddii aad tahay saaxiibada hore noo joogin waxaa kaa codsanaya inaad janaalka subscribe oo like comment-ga ee market analysis oo ah inaan falanqeeno suuqi. Inaan chatkeena markaan ku imaano waxaa u baahannahay inaan suuqii falanqeeno ama taxliilino si aan go'aan ugu gaarno suuqan meesha aan u galayno, inaan buy u galno iyo inaan sell u galno. Marmarkaa u baahan tahay marka inaad suuqa falanqeysid waxaa u baahan tahay laba shay oo aad iyo aad u muhiim ah. Kow inaad ka fiiriso maxaa la fundamental analysis waxaa waaye taxliilinta warbixinada ee dowladaha dhaqaale ahaan xaaladahooda dhaqaale ku saabsan. Kanna waxaa waaye waa technical analysis waa taxliilin technical ah oo qofka si shaqsiyan oo istiraatiijiyad oo isticmaalaya. Marka fundamentalka iyo technicalka way kala duwan yihiin. Maxaa yeelay fundamentalka qofka isaga ma go'aamin karo oo ma dhihi karo kan saan u noqona. Fundamentalka waxyaalaha oo taxliilinta qiimaha waxaa waaye oo warbixinada ay soo dayaan dowladaha oo kale oo ku saabsan xaaladahooda dhaqaale iyo sida ay lacagtooda u saameynayso. Kan waxaa waa sentimental analysis oo ah waa mid kaloo saddexaad ah laakiin inta badan labadan ayaa la isticmaalaa. Kan waxaa waaye waa qaabka dadka ee investing ugu sameysanayaan lacagta iyadana waa arki doonaa. Kow horta waxaa ku hormaraynaa horta inaan fahanno fundamental analysis. Fundamental analysis horta waxaa waaye waa nooc kamid ah falanqeynta ama taxliilinta iyadoo marka lagu xirayo ama la fahmayo xaaladda dhaqaale ee waddanka iyo sida lacagtu u saameynayso. maxaa yeelay waddanka dhaqaalihiisa xaaladihiisa dhaqaalo waxyaabo badan aa saameeyo. Marka qodobada ugu badan oo saameeyo ayaa fiirin doonaa. Marka kow horta qodobka koowaad ee conditionka economic conditionka sabab waxaa ka mid ah oo fundamentalka ee muhiimka ah waa interest rate. Interest rate waxaa waaye waa lacagaha dulsaarka ah oo la saaro ee bangiyada ee dul saaraan. Interest rate-ka marka isaga waxaa waaye waa bangiyada localka ah wixii ay ku fajirayaan qofkii deyn ka qaadanayo iyo qofkii oo ayna siinayaan qofkii lacag dhiganayo. maxaa yeelay aniga hadda bangiyada bangiga Islam waaye akoonkaada lacag ku 10,000 aad ku shubtid 10,000 aa hele. Laakiin bangiyada reer galbeedka oo kale hadaa bangiga lacag dhigtay interest rate aa kugu qoraayo oo dul saaray. Haddii aad deyn ka qaadatin ayadana waxaa lagu saaraa charge aa lagu saaraa lacag aa lagu jaaja. Kaasaa marka waxaa la interest rate. Interest rate soo u saameynaa mar walbo oo dadka deyn ay qaataan interest rate kaa badanayo. Dadkii markii oo lacagaha haysta waxay sameynayaan bangiga ay dhiganayaan si lacagahooda ay u siyaado. Dowladda bangiga dhexe wuxuu sameynaya marka marna interest rate hoos u dhigaa marna kor u qaadaa. Sababta u sameynaya inuu ilaaliyo lacagtiisa qiimaheeda inuu ilaaliyo. maxaa yeelay haddii dadkii dhan ay lacagahooda bangiga ay keensadaan oo dulsaar leh uu koraayo waxaa maxaa yeelay qofka wuxuu u jeedaa fursadda in lacagtiisa meel u taalo lacagtiisana ay lacag usii dhalayso. Qofkii deyn qaadanay oo loonka hadduu badan yahay qof deyn qaadanaya malan maxaa yeelay lacagtii dulsaarka ee aad u badan wuxuu ka faa'iidaya malan marka bangigii dowladda dhexe waxay ku khasbantay mar walba inay interest rate-keeda ama inay kor u qaado ama inay hoos u qaado si maxaa la iskugu manage garayso lacagteeda dhaqdhaqaaqa. So ayadana aad iyo aad mid aad iyo aad muhiim ah waaye. Interest rate-kane mar xiliyo kala duwan aan soo dayaa sana 2 bil ama 3 bilbo maraa la soo dayaa oo dowladda soo saarta. Qodobka kale oo aad muhiim ah waxaa waaye oo lacagta saameynaya dhaqaalaheeda waa employment statistics-ka. Employment statistics waxaa waaye waa dadka shaqeeyo waddankaas. Tusaale oo kale Ingiriiska lacagta ay isticmaalaan waa Great Pound. Haddii marka Ingiriiska employment iyo statistics soo baxdo haddii ay sheegayso dadka shaqeeya iyo dadka aan shaqeynin inay bataan dadka aan shaqeynin it means waxaa waaye lacagtaas qiimaheeda aad u hoos maraa. maxaa yeelay dadkii wax ma iibsan karaan maxaa yeelay waxay wax ku iibsadaan lacag wax ku iibsadaan ma haystaan. Dowladda marka mar walbo oo heerka shaqaalaha ee aad u badanta shaqo la'aanta lacagta way saameynaya.
haddii dadka shaqeeyo ay aad u badan yihiin dadka aan shaqaynin ay yar yihiinna sidoo kale lacagtana aad ay u caawinay maxaa yeelay dadkii lacagaa soo galayso qofkii lacagta markuu soo galo wuxuu bilaaba inuu isticmaalo inuu bangi lacag gato inuu guri gato inuu maxaa lahaa suuq imaado noloshiisa wixii cun lahaa oo sameyne marka lacagtaas wareeganaysa marka waxay sameyne qiime sameyne marka economic statistics aad ayuu muhiim u yahay waa qodob kale oo dhaqaalaha saameeyay lacagtaba qodobka kale oo fundamentalka marka la fiirinayo aad u saameeya waxaa ka mid ah waa GDP oo loo soo gaabiyo Gross Domestic Product oo ah waa wax soo saarka wadanka gudaha waxaa jirta GNDP iyo GDP GNDP waxa waa Gross National Product oo ah waa wixii Ingiriis sheegto oo ama Ingiriis ah oo adduunyada shirkado ku leh wax soo saarkooda la xisaabina laakiin hadda waxaa la fiirinaa GDP oo ah Gross Domestic Product oo ah shirkadaha dhulka Ingiriiska ku wada yaalo oo Great Britain-ka ah lacagaha wax soo saarkooda haddii wadankan wax soo saarkiisa uu yahay wax badan lacagtiisa marka qiima yeelanay haddii wax soo saarkii wadanka uu yarahayna lacagtaasna saameyn ay ku yeelan maxaa yeelay wadanka dhaqaala badan ma soo galayo maaha lacag ma soo galayso haddii lacag soo galay marka aad ay lacagta qiimahees hoos u dhacay suuqii saameyn ku yeelan laakiin haddii wadankii wax soo saarayo wax soo saarkii marka dadkii kale oo dibadaha ka imaanayo oo wax ka iibsanayo kale productkan isticmaalo oo iibsanayo wadan waxay soo gelinayaan lacago badan ay soo gelinayaan marka ayadana waa qodob kale aad u muhiim u ah sidoo kale waxyaalaha oo fundamentalka aad u saameeya waxaa ka mid ah waa political causes oo lacagaha saameyn ku leh political causeska waxaa waaye xilliyada ay doorasho jirto oo kale xilliyada caaradka iyo muxaafidka inay si ay isku haystaan oo kale aad u saameynaya sorry waxaa kaloo ka mid ah fundamentalka qodobka ugu dambeeya oo ah natural causes عشان haddii wadankaas oo kale dhulgariir oo ka dhaco kale haddii tsunami oo ka dhaco kale way saameynaya lacagtooda maxaa yeelay wuxuu saameynaya waxay u baahan yihiin inay wadankaas dadkaas u gurmadaan maxaa la culeysyo badanaa saaran cadaadisa saaran marka lacagta marka way saameynaya saameynta marka waxay noqon kartaa lacagta mar walba wax qiimaheeda saameynteeda saameyn positive ay noqonaya ama saameyn negative ay noqonaya oo intaas horta waxaa waaye waa fundamental analysis qodobka kale oo aadka muhiimka ah waxaa waaye waa technical analysis technicalkaas analysis waxaa waaye technical waa iska naqaanaa waa wax qofka oo istiraatiiji ama process oo marayo kale si oo u taxliiliyo technical analysis waxaa waaye waa istiraatiiji oo lagu fiirinayo kale dhaqaaqii hore ee suuqan iyo bilooyinkii ugu dambeeyey maalmihii kale meesha ku socday si qiyaas ugu qaadi u fahamtay halka uu aadayo tusaale trend yaa noo yaalo oo ah in maxaa la dhahaa trendigan maalmihii ugu dambeeyey bili ugu dambeeyey koro xamaho haddana wuxuu bilaabay suuqi inuu consolidation sameeyo hoos soo aado so marka waxaa og tahay haddii mar qiyaas waxaa qaadanaya maadaama suuqan kor ahay consolidation sameeyo range haddii suuqan oo inta kasoo baxo hadduu inta kasoo baxo inuu maxaa la dhahaa hoos aadayo haddii kor uu ka baxane inuu kor usii soconayo kala kulan inta ka fiirino oo fundamentalka ah qodobka daaya fundamentalka practice-ka chartiska markaa imaatay waxaa arkay maxaa la kana lasaan uu weyn yahay halkiis xabo indhala qaarana way yaryar yihiin farqi u dhexeeya maxaa waa marka horta kandhaladan oo saanka weynka oo halka xabo weynka waa newsyada aan kasoo hadlayna intaas newska aan sheegnay mid kamid ah ayaa sababay inuu lacagtan saan u dhacdo famino you see here lacagtan newsaa sameeyey qaabka newska waa warbixinta soo baxday kaas waxaa waaye newsyada waaye technicalka waxaa waaye inuu qofka go-aan ka gaaro oo inuu dhaho waaye tusaale oo kale lacagtan oo kale lacagtan down ay ahayd sax lacagtan sorry tusaale oo kale lacagtan saan usoo baxday low high samaysay low suuqa intoo consolidation ka galay double top
almost waxaa suuqaa inuu bam soo dhac maaha. So marka technical qofka marka wuxuu ogaaday suuqan xiliyadiisii ugu dambeysay inuu down yahay. Marka hadda markuu go'aaminayo wuxuu ku xisaabtamaa haddii suuqan oo maadaama oo inta u noqdo inta istaagay inuu dhaho suuqan almost inuu soo nadiifiyo. Markuu soo nadiifiyo meeshaan oo kale inuu dhigto هنا selkiisana halkaas ama intoo kale iska geysto redkaan nadiifka ah inuu ka qaato. So hadda muuqaalka ugu dambeeyay oo shortiga ahaa aniga suubina tradekeyga intaa ka qaatay. Diskan waxay intuusan ka dhicin aan soo duubay laakiin markii dambe wuu ku dhacay TP-gii. So marka technical kaasaa la marka. Technical analysis marka waxaa la fiirinaa suuqa xiliyadii ugu dambeeyay meeshuu hadduu kor ahay wuu sii falanqeysi kadib waxaa ogaanay trendiga labaad meeshuu aaday meesha kale. Technical indicator jirta indicators waxaa waaye waa tusayaal marka inta badan ani ahaanteyda indicator ma isticmaalo laakiin qofkii danaynayo markaas kanaalo kala jiro oo indicatorada oo sharxayo iyo waxaas laakiin inta ugu badan waxaa waaye MA waa moving average oo kale exponential moving average relative strength dhammaan waxaa waa markaas waa indicator kala duwan oo loo isticmaalo. Marka on focuskan maba saarabo maba isticmaalo adina haddaad jecesha waa sii raadin kartaa laakiin inta uu interest muhiim ma lahan. Marka qodobkan kale wuxuu ka hadlaa noocyada ugu muhiimsan ee technical analysis-ka. Technical analysis markii la sameynayo saddex qayb waaye waa in classical charting isticmaashi ama price action isticmaashi ama technical indicator-ka. Technical indicator-ka waa kuwa aan soo sheegnay waa kuwan. Kanne classical charting-ne waa mid maxaa la all division waaye oo general price pattern-kii waxaasaa la fiirinaa don't focus on. Laakiin kan ugu muhiimsan oo aan isticmaalo waxaa waaye waa price action. Movement of price, understanding why price moves including candlestick pattern. Ashan price action-ka waa kan oo maxaa la dhahaa candle formation kan u samaysmayo kuu sheegaysa. Almost haddana waxaa arkay price-kan wuu soo dhacay almost waxaa arkay markuu soo dhacay inuu price-kii ku noqday oo haddana soo jebiyey oo haddana inta ku noqday oo movement-iga soo sameeyey. So almost waxaa u jeeda price-kan movement-igan sameeyey in almost price-kan uu sii dhacayo oo hoos u sii socdo. Waxaa ii saaciday waa price action-ka oo ah price action-kan sida micnihiis waxaa waaye waa candle formation candlada siday u samaysmayaan si markaas aa go'aan ugu gaartay suuqa meeshuu aadayo. Taas waxaa la technical analysis-ka. Sentimental analysis waxaa waaye inaad fahantay mood of investors and market as a whole. Mood of investors waxaa lahaa suuqa intoo kale had suuqan ma furno oo kale waa waxa ku tusaya in suuqan oo dadka ku jira haday cagaar yihiin oo kale wuxuu kutusaa investorska inay dadka buy ee suuqa wada galooyin. Halka markay redka ay tahayna inuu kutusayo suuqan inuu inta badan uu sal yahay suuqa dadka ayaan ama inay wax iska iibinayaan. Sentimental analysis-kaas waaye laakiin waxaa u muhiimsan technicalka noo qaadan doona istiraatiijiyadiina waxay tahay price action oo ah pure price action oo wax indicator kale iyo hawlo kale loo isticmaalayno. We only focus on candle formation-ka formation soo samaysmo and then decide. Sidoo kale technical analysis-ka qabtiisa hada price-kan waxa movement-kan wax dhacay waaye laakiin hadduu dhicin oo kale waxaa aragtoo kale suuqa inta markuu saan soo dhacay uu soo dhaqaaqmaho candle-ka intuu rejection ka sameeyo. Candle-kan keliya oo rejection-kan sameeyey ayaa wuxuu ku tusinaa in suuqa uu hoos soo aaday laakiin la celiyey dadka buyers ayaa suuqa soo galooyin waxay rabaan inay suuqan jihada mee ka wareegaan. Hada waxaa u baahan tahay inaad sugtid markii la celiyey haddana waxaa aragtay in suuqii buy uu sii aaday haddana movement buy noqday ilaa iyo ugu dambeyn uu suuqii haddana markuu inta jebiyo almost waxaa kuu fudud inaad suuqii inta kasira maxaa yeelay waxaad dareentay ama price action uu kuu sheegay in candle-ka oo sellers oo suuqa looga awood batay oo buyers ka imaadeen and then moving turn is enough. At least hadaa inta hadaa dhahata 44 bits enough for you.
muuqaalkeenii maanta oo market analysis-ka wax badan falanqaynta waan samayn doonaa oo insha Allah usbuuc walba Axadii oo soo gelin doonaa muuqaal aan ku fundamental analysis-kana marka hadda wixii hordhaca qaadanay laakiin insha Allah mid waa u dul istaagi doonaa mid ugu soo hadli doonaa iyo mid walba iyo tusaalihiisa. Waxaan idin rajeynaa maalin wanaagsan, khayr iyo caafimaad. Haddii aad tahay marka saaxiibada hore noo jooga waxaan kaa codsanaya inaad channelka noo sii share garaysid si saaxiibo badan ay u gaaraan. Haddii aad tahayna saaxiib noo cusubna fadlan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe, like, share, comment noo saarto. Aad aad mahadsantihiin waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena Fasoon FX. Waxaa inoo socota xalihiinii kursiga haddana waxaa soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay qaybtii sagaalaad ee aan ku baran doono inaan maanta bilaabno suuqa forex. Maadaama aan soo baranay wixii hordhac ahaa, wixii maxaa la dhahaa lacag waxay tahay, erebixintoodii, chartiska sida loo analyze garay everything markaan soo aragnay. Hadda waxaa taaganahay albaabka koowaad ee suuqa forex laga galo oo ah inaan bilaabno. Markaa rabto inaad suuqa forex ka bilaawdi waxyaalo waxaa jira marka lagaa rabo, waxyaalana waa wax guud, waxyaalana waa wax gaar ah. Marka muuqaalka marka waxaa ku baranaynaa laba shay oo ah basics alashaan oo ah general qof kasta oo rabo inuu suuqan ka shaqeysto waxyaalaha laga rabo, iyo waxaa ku baran doonaa specifics oo ah qofka shakhsiyadiisa wax u gaar ah. Kan adoo gaar kuu yahay, kanna waxaa waaye waxaa la wadaagtaa basic-ka qof kasta oo suuqan forex-ka ka shaqeysto ayaa ka wada mid tihiin. Marka basic-ka maxaa ka mid ah? Basic-ka waxaa ka mid ah qofka inuu laptop haysto, inuu internet heli karo, inuu account online furto, inuu software isticmaalo. Halka specific-gan ay ka mid tahay inuu qofku broker helo, forex broker inuu helo oo ah qof dulaale oo u dhex maro oo maxaa la dhahaa oo ku xirta MT4-kiisa informations inuu helo, warbixin ama macluumaad oo newsada iyo waxaas kusay meeshuu ka helaayo. iyo forex journal waxaa la dhahaa meel dukumentiyadaada ama xogtaada lagu diiwaan gashto, iyo qofka inuu lacag doorto maadaama lacagihii aan soo sheegnay ay ahayn 7 lacag waaweyn guud ahaana 28 lacagood ay yihiin. Marka inuu lacaga qeyb ka doorto specific waaye. Ani haddii aad lacag aad doorto tusaale kale euro USD aad doorto, adina waxaa rabtaa ama specific waxaa rabtaa GBP USD. Marka waa waxa aan kala duwanay saas oo kale waaye. Mid marka u dul istaagi doonaa waalidmo. Basic horta maxaa waaye laptop-ka ugu horeeyo. Qofka waa inuu suuqan bilaabo ama ka shaqeysto suuq forex-ka waxa ugu weyn oo maxaa la looga baahan yahay waa inuu haysto laptop. Laptop sababta uu helay maxaa waaye suuqan siisa waa wax online ku shaqeynayo. Shayga haddii mar online uu yahayne qofku wuxuu u baahan yahay inuu laptop haysto number 1. Internetka waxaa ka horeeya laptop. Laptop-kaas marka waxaa waaye waxaa u isticmaali kartaa forex bisa u isticmaali kartaa, hoola kalena waa u isticmaali kartaa. Lambar 2 qofka waxyaalaha oo laga rabo waxaa ka mid ah oo generalka ee qof kasta oo rabo inuu suuqan oo forex trader u baahan yahay waa internet. Internetka hadduusan qofkan haysanin ma helayo wax xog ah oo macluumaad ah qaab u galo maxaa yeelay waxaan dhan waxay ku xiran yihiin internetka. Shayga xigo oo qofka loogu baahan yahay waxaa waaye internet. Internetka marka waxaa waaye waa waxa ugu muhiimsan ee trading-ka. Wuxuu ku siinayaa marka inuu qofkan ogaado lacagtii markaas uu galo trade-ku markaas qaatay xaaladda uu marayo, ama sell ma u qaatay, buy haddaa u qaadatay meesha ay marayso, khasaare ma kugu socoto, faa'iido ma kugu socoto. Wuxuu ku siinayaa marka access inaad waxa ay fiirsan karto. Tusaale kale waxaad aragtaa umaleynaya haddaa muuqaal daawanaysid oo internetka rabtid inaad ka daawatid. Haddii internetka oo YouTube-ka soo gashay muuqaal aa ku socday. Muuqaalkaas mid qaybtiisa kale hadduu internet kaa go'o meesha uu marayo ayuu istaagsanaanaa sax? Marka haddii marka adoo trade ku jirtay oo internet kaa go'o wixii dhacay kadib ma arkaysid internetka wixii ka dambeeyay. Marka waxaa u baahan tahay inaad internet ku xiratid. Internetkana haddana waa nolosha bini'aadamka qayb ka noqday. Meel kastana hadda waa laga helaa miyi iyo magaalaba. Waxyaalaha kale oo common-ka laga helo waxaa ka mid ah qofka inuu sameysto trading account ama online account. Step-ka xiga waxaa waaye qofka inuu trading account furto oo maxaa waaye shirkado waxaa jira markaas oo akoonno laga furto oo maxaa la dhahaa oo qofka siinaayo account inuu ku furto online. Account online waxaa maadaama anaga aan rabno inaan suuqan online ugu shaqeysano
waxaa u baahannahay markaas in account online aad samaysano. Akoonnada online kambaniyo waaweyn aa sameeyo, waxaa kamid ah FX Primis aa kamid eh, maxaa la dhahaa kambaniyooyinkaas waaweynka laga furtaa. Qofka markuu helo trading account online account markuu kambani ka furto, wuxuu u baahan yahay inuu helo software qof kasto. Softwareka marka hadda inta ka muuqato waa software oo MT4 ah. MT4kaas marka isaga wuxuu qofku uu soo degsanaa, marka MT4kaas marka wuxuu ku ogolaanaya in suuqan trade gasho. Marka MT4ka waxaa lagu xirtaa broker, waa waxyaalaha specific uu ka mid yahay, isagana waa arki doonaa. So marka MT4kan iyo qaabkiisa ayadan muuqaal aan kasoo samayn doonaa qaabka loo isticmaalo applicationkaas. MT4 iyo MT5 qofka inuu soo degsado ama laptopkiisa ku degsado ama taleefankiisa ku degsado si maxaa la dhahaa oo ula socdo xaaladiisa. Marka qaybtaas waxay ahayd qaybtii oo maxaa la dhahaa oo basic-ka oo qof kasto looga baahnay. Waxaa jira marka specific-ka waxyaalaha qofka u gaarka ama qof kale uga duwan yahay. Waxaa kamid ah brokerage-ka, forex brokerage-ka. Broker waxaa waaye waa dulaal, waa qofka u dhaxeeyo adiga iyo suuqan. Maxaa yeelay anaga waxaan nahay dad retailer ah ama dad yaryar aan nahay. So marka access ma u lihin inaan transaction ka sameyno suuqan forex-ka. Laakiin waxaan sameyneynaa broker ayaan dhex maraynaa dulaal. Dulaalkii marka account marka ka furano wuxuu siinaa maxaa la dhahaa user ama login iyo password uu siinaa. Login-kii iyo password-kii ayaa waxaa gelinaa MT4kan software-kan oo aa gelinaa. Software-kan markaa geliyo access marka wuxuu i siinaa inaa markaas sidaas aad transaction ku sameeyo, aad trade qaato ama buy aa u qaato ama sell aa u qaato. So marka brokerada shirkadaha way kala duwan yihiin. Brokerada inta ugu caansan intaan waaye FOREX-B aa kamid ah, AFC aa kamid ah, FX Promise aa kamid ah, FX Open aa kamid ah, IBX aa kamid ah, Thinking aa kamid ah, FXCM aa kamid ah. Dhammaan intaan waxaa waa broker, FX Pro aa kamid ah. Dhammaan intaan waa brokero. Brokerada marka waa waxa lagu kala duwan yahay. Sidee loogu kala duwan yahay? Anigoo kale waxaa i anficay FX Promise ayaa anfacday. Adina waxaa ku kacday FXCC. maxaa yeelay adiga kan waxaa ka aragtay inuu spreadkeeda hooseeyo ama maxaa la dhahaa wax kale aa ku dooratay oo in lacag bixiyo oo lacag shaqaysta bixiyo ku tusinaysa, halka aniga kan aa wax kale ku dartay. So marka waxaa imaaday oo wax difference ama specific aa imaaday oo loo doonaan karaa. Qodob kale oo specific waxaa kamid ah waa macluumaadka oo kale. Macluumaadka waxaa kamid oo kale qofkaas siduu step xiga u baahan yahay waxaa waaye inuu macluumaad oo ku saabsan forex inuu helo. Marka qofka marka wuxuu sameynaa marka macluumaad oo baaraa istiraatiijiyooyin oo baranaa waxyaabo badan oo macluumaad badan buugaag badan oo akrinaa. Marka qofka marka website badan oo qofka wax ka fiirina lacagtan qaabka u socoto. Marka information-ka qofka hal information ma laha qof walba information u gooni ayuu raadsanaa oo u gaar ah. Website-yada waxaa jira oo newsyada laga fiiriyo oo qofaa wuxuu ku fiirinaa website my Facebook, qofna wuxuu iska fiirinaa Forex Factory. So marka waa information meesha laga helaayo waa lagu kala duwan yahay, buugaagta la akhristo waa lagu kala duwan yahay. Ayadan taas ka mid oo macluumaadka laga helo. Qof kasta marka qaabka oo information u raadiyo ayay ku xiran tahay cilmi baaris uu sameysto. Qodobka la xiga oo waxaa loo baahan yahay oo specific waxaa waaye waa Forex Journal. Forex Journal maxaa la dhahaa waa inaad diiwaan gelisay maxaa la dhahaa trade walbo oo aad qaadatay si markaan ujeedada laga leeyahay waxaa waaye inaad ogaatid war waxa aad sameynaysid ma yihiin wax shaqeynayo. Maxaa yeelay qofka bini'aadamka maskaxdiisa waxyaabo badan ayaa ka dhex buuxaayo. Marka wixii dhan ma xifdin karo. Laakiin transaction walba ama trade walba oo aad qaadatay haddii marka aad samaysatay maxaa la dhahaa documenti oo ku diiwaan gelisay. Si hadhow bil kadib bishii markay dhamaato oo kale aad u fiiriso aad dhahdid war niyow meeqaa khasaaray meeqaa faa'iiday. So marka taas ayadana aad ay muhiim u tahay. Forex Journal marka waa lagu kala duwan yahay. Dadaa waxay isticmaalaan Excel ahaan inay ku samaystaan, dadaa spreadsheet ku samaysto, dadaa waxay ku samaystaan maxaa la dhahaa Notion application. So ayadana waa lagu kala duwan yahay. So marka everything oo marka waxyaalihii documenti oo material uu khuseeyo oo insha Allah aniga waan ila wadaagi doonaa mar walba muuqaal aan kasoo samayn doonaa. So marka just hadda waxaa waaye inaad fahantid oo ogaatid in Forex Journal ay aad muhiim u tahay. Qofkani
oo ku ogaan karo in istiraatiijiyadiisa wuxuu isticmaalayo inay tahay wax shaqeynaya iyo waxaan shaqeynaynin. Maxaa yeelay haddii aadan wixii diiwaan gelin oo aad wixii samaysay haddaadan report garaynin, sidee marka u ogaan kartaa waxa inay wax saxnaayeen ahayn inay wax khaldanaayeen? Haddaad saxda waa diiwaangelin, haddaad khaldan waa diiwaangelin leh. Waxay kaa caawinaya marka in istiraatiijiyada ama waxa isticmaalaysid aa improve garaysid. Waxyaalaha kale oo lagu kala duwan yahay waxaa ka mid ah waa currency choice oo ah in qofkii lacag uu doorto. Lacagta maxaa waaye? Qofka lacagaha ugu waaweyn suuqa horta waa Euro USD, JPY USD, wixii lacag ah waa soo aragnay. So maadaama 7dan lacagood ay ugu waaweyn yihiin, qof kasta marka choice uu lahaana. Choice-ka maxaa waaye? Adigoo kale 2dan lacag ugu horeyso Euro USD iyo JPY USD ayaa waxaa baratay behavior-keeda ama hab-dhaqankeeda aad baratay. So marka iyada ayaa ku trade garayni, iyadaa isticmaalay. Sababta loo dhahayo currency choice waxaa waaye maadaama suuqan 7 lacagood ay tahay, 7dan lacagood ee lacag kala soo isticmaalaya oo guud ahaan 28 lacagood eh, haddii trading view-gaaga ama maxaa la dhahaa meeshaada oo watch list-gaaga haddii lacagahan aad soo saftay, meesha ugu hooseyso 7dan lacag aad soo qaadatay. 7 lacag markaad soo qaadatay aa meesha saftay, ma tan fursadeedaa fiirsaa mise tan fursadeedaa fiirsaa, tan fursadeeda maa fiirsaa, tan fursadeeda maa fiirine. So qofkii wuxuu sameynaya marka wuu wareeraa, fursadihiina way dhaafayaan. Marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu 2 lacag ama 3 lacagood ama 4 lacagood inuu doorto si uu u control karo ama xaaladahooda oo ula socon karo si aysan u dhaafin fursadihii uu markaas qaadan lahaa. Muuqaalkeennii intaas ayaa ugu muhiimsaneyd, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share, comment. Haddii aad tahay saaxiibada hore noola joogana waxaan kaa codsanaynaa inaad janaalka sii share gareysay. Aad iyo aad aa umahadsantihiin. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صاحبada ku xiran janaalkeena Fasoon FX. Maalin wanaagsan, waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada caafimaad qabtiin. Waxaan idinka raali gelinayaa inaadan wax muuqaale aan idiin soo dhigin maalmahan sababo culeysyo iska jira awgeed. Saa wada ognahay waxaa inoo socday muuqaalkeenii taxanaha ahaa ee barashada suuqa forex-ka qaybtiisa beginner-ka. Alxamdulillaah, dhammaan qaybtii beginner-ka waa soo dhameynay. Haddana waxaan u gudbi doonaa qaybtii labaad ee barashada suuqa forex-ka. Maadaama qaybtii hore ay ahayd asaasiyaad ama basic qofka inuu fahmo sida lacag waxay tahay, bixinadooda, forex waxa laga wado, suuqyada forex-ka, siduu u shaqeeyo, dadka ka shaqeeyo. So waxyaalahaas waxaa la dhahaa asaasiyaad ama basic. Qofka marka inuu fahan ka haysto waxa uu rabo inuu ka shaqeysto. Haddana qaybta labaad aan u gudbi doono waxaa waaye istiraatiijiyad ama qaabkii aad istiraatiijiyadeed si aad suuqan wax faa'iido ah ugu samaysid. Suuqan waxaa jirto istiraatiijiyooyin kala duwan, dad badan oo trader ah oo istiraatiijiyado kala duwan isticmaalo. So marka qof walbo wuxuu ku qancay istiraatiijiyad ama nidaamka uu fahmay ayuu ku qancay, kaas ayuu isticmaalaa. Maanta marka waxaa idin barayaa mid ka mid ah istiraatiijiyooyinka aan isticmaalo aan suuqan ugu shaqeysto. Istiraatiijiyadaasna waxaa la dhahaa break and retest. Break and retest waxaa laga wadaa in suuqa tusaale oo kale suuq saan ahaa oo kale inuu saan sameeyo oo marka suuqa inuu inta soo jebiyo and then retest inuu halkaas ku noqdo and then continuation. So marka halkan waa meesha marka aanay tradeada aan ka qaadanayno oo aan suuqa ka galo. So marka taas aan waxaa la dhahaa break and retest. Kaasoo break kana laga wadaa oo ah inuu suuqa jibiyey, retesting waxaa waaye inuu suuqii meeshii uu jibiyey inuu ku noqdo. So marka istiraatiijiyadan ayaa isticmaali doonaa hadduu Alla idmo. Waxaan rajeynayaa marka dhammaantiin inaan qof walba noodkiisa soo qaato si tartiib ah u qorto wax allaala wixii markaas oo aadan fahmin ama aadan su'aal ka qabtid inaad qaybta comment-ka nala wadaagtid. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna waxaan kaa codsanaynaa inaad janaalka kusoo biirtid si safarkaaga uu noqdo safar wanaagsan. Saaxiibada hore noola joogana waxaan ka codsanaynaa inay janaalka sii taageeraan oo subscribe, like, share iyo comment iyadana ka iloowin iyagana. Maanta marka muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay break and retest istiraatiijiyada waa guud ahaan mid isticmaalayno. Qodobada marka cashirkan uu hadli doono waa 3 qaybood. Qodob uu hadli doonaa. Qodobka koowaad waxaa waaye basic price action. Waa maxay price action-ka? 2 time frames-ka. Alashaan time frame waxaa laga wadaa kuwan 4 hour, 1 hour, 30 minute-ka
and this kuwana marka waxaa lahaa time frame. So marka time frame kee isticmaalaynaa markii anaga aan joogno istiraatiijiyadan. No indicator waxaa laga wadaa sida hore ugu soo aragnay technical analysis markaa ka hadlayna waxaa jirta indicator oo dadka traderska ay isticmaalaan si ay suuqa ugu go'aamiyaan. So marka anaga marka wax oo indicator inaan isticmaalayno in kale ayaa istiraatiijiyad ku baran doonaa. And finally waxaa kusoo gabagabayn doonaa sida zoneska ama chartiskaaga loo sawirto si aa u heshi meel level. So marka midka koowaad ayaa ku bilaabno price action. Price action horta maxaa waaye? Price action horta sidiisa waxaa waaye candle formation waa. Waa sida kandhalada u samaysmaan. Sidoo kale hadda chartiska waa kana. Esi kan muuqaala hore waa isku delete. Candle formation kana la. Candle kan hadda oo strongly bullish ka ah. Candle kale oo bearish laakiin waa lasoo bixiyay bearish waaye. Then bullish. So marka micnaha ujeedka wuxuu yahay marka candle formation kandhalada u samaysmaya oo ah haddii kan sidoo kale labadan candle oo kale waa bullish candle. Labadan candle waxay samaysmaan second maxaa dhici doona. So sida loo ognahay bullish candle-ka waa badan doonaa waa isaga suuqa markaan jiha male waana daciif. So marka guud ahaan marka waxaa waaye price action-ka inuu inoo sheego kandhalada sida u samaysmayaan. Kan hadduu samaysmo reduction haddii la arko next maxaa xigi doona. So kaas ayaa waxaa lahaa price action. Labo time frameska isticmaalayna. So marka istiraatiijiyad walba markii la joogo waxaa jirta time frame oo laga soo bilaabo oo qofka oo ah high time frame. So marka for my opinion ama istiraatiijiyada aan isticmaalo oo halka sano iyo barka ugu dambeeya isticmaalaya waxaa la isticmaalaa 4 hourska. Taasoo mar walba oo aan rabno inaan analyze gareyno suuqa ama mar walba meesha marjaca ugu weyn aan ka fiirinayno waxa inuu noqdo 4 hourska. 4 hourska isaga maxaa waaye 4 hourska maxaa ka dhacay. It means waxaa waaye halkan kan dalbo 4 saac oo soconaa. Kan kalena 4 saac oo soconaa. Kan 4 saac oo soconaa. So marka waxaa waaye kan daliska 4 hourska time frame ka noogu weyn aan yahay 4 hourska. 4 hourska isaga maxaa ka fiirinaynaa ama maxaa noogu muhiimsan maxaa waaye inaan horta ka ogaano suuqa jihada uu yahay. Ma suuq kor u socdaa? Ma suuq hoos u socdaa? That's why marka oo loo dhahayo marka high time frame kan waxaa waaye had this one trade shalay qaatay waaye. So almost waa half kan iskaga xiray. Waa inta 4 hour ka soo laakiin 30 minutes haddii la tago almost ujeedin half kan iskaga xiray. Taasoo meeshaan all rejection ka dhacday. So that focus ma saarayna muhiimad waxay tahay in horta fahno time frames ka isticmaalayno. So marka time frame kan noogu weyn marka wuxuu yahay 4 hour. 4 hour time frame maxaa waaye? The 4 hour time frame zoom it out. The maximum is the best time frame to trade if you wanted to make money. It means waxaa waaye kaliya ma lagu dhahayo 4 hour bisa lacag sameyne. But istiraatiijiyada markii la joogo aragti inaad dhaqaalaha ka samaysay suuqan ama aad wax ka samaysay waa inaad maxaa lahaa time frame ka noogu weyn inuu noqdo 4 hour. 4 hours maxaa waaye intraday trading waa maxaa yeelay annaga suuqan ma ka trade kareyno swing trade ma lihin oo maxaa yeelay traders noocyadiisa marka tusaaleyn waxaa waaye scalping iyo position trader iyo day trader iyo waxaa la dhahay iyo swingi scalping iyo position iyo day trader afartaas oo kala soo saarna trader oo casharada asaasiga ku soo baran. So marka marka anay day trader aan oo maalintii rabno inaan trade keeno oo aan qaadan hal ilaa 2 trade. So marka waxaa u baahanahay inaan 4 hour keena oo noo noqdo time frame ka ugu badan si aan ugu go'aamino suuqa jihada oo markaas aadi doono. The zoomed 4 hour chart gives you an overview what's going on the market and tells which is the dominant trend and how you can profit from it. It means trending waxaa waaye suuqa jihada oo u socdo ayuu inoo sheegaa 4 hour. Hadduu suuqa kor u socdo time frame-yada kale entry-geena waxaa ka raadinaynaa suuqa inaa kor ka sii aadno. Haddii uu inoo sheego inuu suuqa hoos socdo waxaa ka raadin doonaa inuu suuqa hoos socdo. That is a time frame. Concept ugu weyn marka waxay tahay time frame-ka istiraatiijiyada markaa joogno 4 hour ayaa ah time frame-ka noogu weyn. Sababtan waxaa waaye annagu ma nihin swing-kan ama suuqa 2 bil 3 bil sanad heesanaya ma nihin. Just waxaa waaye day trader nana 1 ilaa 2 trade ilaa 3 trade ilaa maalinta xilaa rabnaa. Si aan u helno waxaa u baahanahay marka time frame weyn taasoo marka ina siinayso jihada suuqa markaas uu yahay
ama wixii markaas suuqa ka dhacayo. Hadduu suuqa inuu tusayo suuq kor u socdo, fursadaha time frame-yadii waxaa ka raadin doonaa jiha kor u socdo. Hadduu inoo sheego 4 hour-ka inuu jihada suuqa yahay mid hoos u socdana, waxaan ka raadin doonaa jiha hoos u socda time frame-yada kale. Hadduu inoo sheego suuqa inuu consolidation ama ranging uu ku jiro ama maxaa la dhahaa oo dhaqaaq fiican lahayn, waxaan isugu doonaa inaan suuqa banaanka ka aadno si oo inoo tuso jiha cad. That's the concept of time frame. So marka next waxaa noo indicatoreska. It means waxaa waaye istiraatiijiyadan markii aad joogno ma isticmaali doono wax indicator ah. Indicator maxaa la lahaa? Waa tuso ku tusinaya like this one. Indicatoreska waana la lahaa. Indicatoreska waa chartska lagu soo dirsadaa. Qolo kale EMA. Marka let's see here. Indicator waana la lahaa. So hadda ani indicator igu jirin. Taasoo indicator waana la lahaa in suuqa aad ku tusato si oo kuu tuso jihada. So marka for my istiraatiijiyada ani aan isticmaalo ama istiraatiijiyadan qof walbo isticmaalo ma isticmaalno wax indicator ah. Sababtoo ah indicator dhan isaga ayaa iska remove gareynaaba isaga dhan. Taasoo price action isaga ayaa wuxuu yahayba indicator-ka ugu wanaagsan oo ah candle formation. Candle-kaas u sameysmayo next waxa xigo okay. So marka istiraatiijiyada marka isticmaali doono no indicator, wax indicator ma isticmaala. As this strategy is based on price action, it doesn't use technical indicator. So I didn't put any technical indicator kuwana lahaa and like this 4 hours volume accumulation distribution advanced techline. So any outfit extension ko kale waxyaalahan dhan waxa waa technical indicator oo chartiskaaga aa lagu soo dirsado. So marka ma isticmaalno. Laakiin waxaa jirta dad qaar oo istiraatiijiyadan isticmaalo oo price action ka ah oo break and retest strategy oo kusoo dirsa indicator-ka. Halka indicator ay kusoo dirsadaan oo maxaa la lahaa the only indicator that I find useful is the 200 period exponential moving average oo ah 200 EMA. 200 EMA maxaa laga wadaa? Is hadda kaloo kale chartkii ani wax indicator ma jiro. Price action ka dadka isticmaalo ama suuqa price action trader and break and retest isticmaalo iyagu halka indicator isticmaalaan ayaa waxa la EMA. 200 EMA. Like this 200 EMA is this one. Chartka ku soo dirsanay kan Philip ku jiro. So this is not good. Let's see EMA average. Exponential على وضع سير exponential moving average. This one. Say wuxuu ku tusinaa marka indicator-ka say wuxuu ku tusinaa 200 EMA say wuxuu u taagan yahay inuu ku sheego direction-ka suuqa. Direction-ka suuqa siisaba laba waayo inuu suuqa kor u socdo ama inuu hoos u socdo inuu ku tuso. Indicator-ka sababta loo fogaanayo waxay tahay indicator-ka sidiisa mar walba wuxuu dhacaa price action-ka markuu dhaco price-ka markuu kor aado ama hoos aado ayuu indicator-ka badanaa dhaca. So marka waa ku sirmee maxaa yeelay mar waxaa laga yaabaa suuqa inuu kor tagay oo isagana cabaar kadib oo kor ku tuso laakiin suuqii inuu kor tago uu soo noqdo. Laakiin sidoo kale haddii indicator-kan suuqan kor u socdo maaha intuu ku soo noqdo ku leeyahay isaga oo hoos u socdo. idmina suuqan dhaqaaqiisa wuxuu kusoo bilowday halkaas uu kusoo bilowday ilaa maxaa yeelay suuqa almost meeshaan xogaa waa laga soo celceliyay. This one suuqan kor u socday rejection ka dhacay wuu fail gareeyay wuu soo dhaqaaqay kor ku noqday wuu dhaqaaqay. So marka indicator sababta almost suuqii markii uu jihadiisa price-kii hoos soo aaday ayuu isaga kadib ayuu ku tusinaa indicator-ka. So istiraatiijiyadan biskeedu waa price action oo keliya oo ah candlestick oo sameysmaya. Indicator qaabka loogu soo dirsadana halkaas waaye. Taas waxaa rajeynaa inaad fahanteen indicator ama exponential moving average-ka. So marka finally marka conclusion-ka concept-ka basically waxaa waaye price action muxuu yahay waa candle formation candlelaas oo sameysmaya. Labo istiraatiijiyadeena time frame ugu weyn isticmaaleen waa 4 hour. Sababtoo ah 4 hour-ka isagu waxaa waaye
waa day trader aniga suuqa maalintii ilaa 1 ilaa 2 trade saa ka rabnaa. So marka isaga ayaa ah timeka noogu weyn. Isagana muxuu inoo sheegaa jihada suuqa iyo suuqa markaas wixii ka dhacay. Hadduu kor u socdo koraa ka raadinaynaa fursade. Hadduu hoos u socdo maxaa ka raadinaynaa fursad hoos u socdo. Wax indicators aan kusoo darsanayna chartskeena ma jiraa waa maya. Sababtoo waxaa waaye pace waxaa noo ah price action oo ah candleless formation sida u samaysmayaan. Wax indicator ma isticmaalno. Indicatorka kaliya oo aan isticmaalno ayaa wuxuu yahay exponential moving average oo u taagan market direction oo ah high up or down inuu suuqa ina tuso. Habka loogu soo darsano waa inta soo kana. So haddana waxaan arki doonaa drawg sida loo sawirto. Sida loo sawiro drawniska ama jihada suuqa markaa rabto inaad sawirno. Hadda inta waxaa igu jirto dhowr lacagood 1 2 3 4 5 6 3 ilaa 5 kan dx waa iska saar isaga no problem. Oo marka intana marka waxaa rabaa inaa marka drawn aan ku sameeyo marka inaad sawirati qaabka loo sawirayo marka. Qaabka loo sawirayo intaad screen ka clear gareeyo. Hal cashiro oo basic ama asaasiyaadka dhimanaa jira kaasoo ah trading view-ga ama charts-ka hadda ana isticmaalayo qaabkii loo samaysto. Insha Allah isbuucan ayaan soo dhigi doonaa muuqaalkaas halka cashiro basic ka dhiman waaye. So marka drawga markii la sawirayo charts-ka markaa rabto inaad sawirtid hal tusaale wana qaadanaynaa kana nagu fudud isaga jihadiisaan tahay. Suuqa marka aan sawirinayno ama support ama resistance markaa sawirinayno haddii mar walba aan dhahno tusaale kale suuqa inta hadaa dhigin xariiqin inta hadaa dhigin xariiqin haddana suuqa inta laga soo celiyay meeshaan haddana suuqa waa laga soo celiyay then suuqa halkan waa laga soo celiyay and then suuqa halkan waa laga soo celiyay secondly suuqii inta haddana waa u dhaqaaqay inta haddana waxaa dhigataa support ama resistance support waaye suuqa haddana intuu support ka samaystay resistance oo ka dhacday. Charts-ka markaa saan ka wada dhigtay drawn-ka markaa saan u sawiratay xoogaa waa confuse badanaa jiro. Maxaa yeelay meeshii dhan wada xariiq meel walba oo suuqan soonay oo laga soo celiyay ama wax calaamaysan xariiqina saar. So marka qaabka loo sawirto marka laba concept waa. Concept-kii koowaad horta maxaa waaye mar allaala markii aan fiirinayno maxaa la price-ka ama drawn-ka markaa charts-keena 4 hour-ka aan samaysanayno focus-ka waxaa saaraynaa left-ga ama right-kan what current price action alla alashan inta wixii ka dhacay. So hadda aniga intaan oo kale hadaa jaro oo kale suuq inuu halkaas jiro ma soo qad. So marka mar allaala markii aan rabo inaad drawn-ka sawirto waxaan focus-ka saaraa current price action. Current price action maxaa la meeshaan joogo. So marka wixii inta ka dhacay sawiradooda naqshadooda shaqo ma kuley. Maxaa yeelay current price action ani trader ahay 4 hours zoom iyo 20 frame weyn ah. So marka focus-ka waxaa saaraa current price action oo ah hadda maxaa inta ka dhacayo oo ah marka sida ugu fudud ku sawiran kartid maxaa waaye. So let's say hadda suuqa waxaa u joognaa inuu suuqan yahay suuq kor aaday almost marka hore waxaa waaye inuu suuqa hoos u soo dhacay. So marka waxaa ka bilaabaa high low meeshaan suuqa laga celiyay inta waa negative waa sawir. Laakiin waxaa arkaa suuqa inuu high sameeyay low inta sawirto. Dan suuqa waxaa inuu high ga sameeyay high low gan haddana oo inta ka dhacay. Suuqan high kaloo sameeyay high low high inta range oo ka dhacday negative high low ga kale inta sawirto. Marka suuqan isaga waxaa u jeedaa marka inuu yahay suuq kor u socdo. So marka hadda iyo awaal isku mid maxay suuqan suuq kor u socdo waaye. So almost waxaa u jeedaa suuqan kala inta ku soo dhacay retest inta lagu sameeyay uu soo dhaqaaqo. Suuqan koraad uu fail garow maaha. Suuqan inta suuqan markuu inta fail garow suuqa wuxuu bilaabay inuu inta qabsado maaha. Ayagana ugu sareeyaad inuu waxaa sugayna waxaa waaye suuqan soo kor u socdo inuu inta qabsado high low sameey then oo moving up sameey.
hadda qaabka u sawirtay qaab qurxan waaye. Maadaama suuqa kor socdo focus wax saarayna high lowgiisa. High-giisana waa ujeedaa. Tusaale suuqan saan la soo dhahay intuu noqday retest uu sameeyay meeshan double button. Waxaa suuqa inuu high sameeyo. High lowgiisa waa kana. High kale. High low. High, high low. High low and then move down. Ujeedaa suuqii saydan waa suuq kor u socdo. Marka tusaalaha koowaad ee qaabka drone-ka loo sawirto this. Maxaa yeelay haddii aad saan dhahdid suuqa intaa laga soo celiyay waa calaamadey and then inta haddana waa laga soo qabtay waa calaamadeynaa inta waa laga soo qabtay waa calaamadeynaa inta suuqa waa laga soo celiyay waa calaamadeyey so like this. Xogaa waa inta haddana suuqa resistance yaa ka dhacay ood waaye then let's see meeshaan haddana suuqa resistance ahayd sawiray and then intane support kala isdhahday meeshaas la support ku jiro here marka marka saan ka dhigtay chatki quruxdiisi waa dhuma waa ku reere ayale inta wax ka fiiris inta ka fiiris qaade the best one waxa waaye su'aalaha marka la ku celinaya kow inaa horta focus ka saarto current price action عشان what happened here in waxa ka dhacay so waa inaa iska ilowda halkaas wixii ka dhacay don't focus halka inta sawirani suuq meeshii la soo celiyay high lowgiis kala waa kana high lowga then price ka dan wuxuu sameeyay high low ayaa suuq inta la celiyay support kaaga is again price make new high low asameysa trading view chat ka soo baxsanay and then watch list lacagaha qaabka lagu soo darsaday next video ku hadli doonaa tusaale hore ku sawireynay drawsoniska hal tusaale ay qaadanay oo ahaa suuq kor u socday next marka waxa qaadanaynaa suuq kale oo hoos u socdo lacagtan hadda joogo waxa lahaa euro USD ayadana qaabkii loo sawiro 4 hour marka joogo waxa idin sheegay markii la sawirayo in aan focus ka saarno current price action oo halkan wixii ka dhacayo wixii bidixdaada ka jiro so focus ka saare marka inaan sawirno marka rabno si u sawirayna marka dadana support and resistance sawira dada inta resistance waaye inta let's see inta dane support au jeeda wala cali support kale support here so marka haddii aad marka drawga saan u sawiratay so marka chatkaaga adin waa ku caajisay waan ku wareeray so marka si aadan ugu wareerin oo aadan ugu xashmin easy way ga u sawirinaysa marka waxay tahay remove gray what happened here عشان انت maxaa ka dhacayo focus waa inaa inta saartaa kow loo hayaysa then here hayga here finally you see hadda ujeedaa chatkaagii wuu qurxoon yahay si fiican ayaa fursada ugu faa'iideysan kartaa maxaa yeelay suuqan wuu soo dhaqaaqay kala hadaa inta dhigtay waxaa aragtay suuqan inuu surface-ka low sameey low high low high inuu soo dhaqaaqay inta ku noqday soo dhaqaaqay intuu imaaday low sameey low high low aan oo fursada jihadaada marka waxay noqotay
jiha clear oo cad si wanaagsan waa u sawiratay. soo marka sida 4 hour-kana wuxuu ahayd qorshiisa ama shaqadiisa ama conceptigii laga rabo waxay tahay inuu inoo sheego trendiga jihada uu yahay, ama inuu down yahay ama inuu up yahay. soo marka insha allah waxaan rajeynaya inaan tusaalahan labaan aad u fahanteen. marka muuqaalkeeni intaas ayaa kusoo gabagabeyneynaa. waxaan rajeyneynaa inaan dhammaantiin aad ka wada faa'iideen. wixii markaas su-aale iyo wixii comment insha allah waxaan rajeynaya inaad qaybtoos ula wadaagtiin. aadaan u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.